hayo arday baana hayo ubaxii waddankaana hayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta kusoo dhawaada cashirkeenii afraad ee barashada SPSS-ka. cashirkeena maanta waxaan ku baran doonaa waxa loo yaqaan reliability analysis oo ah qayb aad muhiim u ah qofka sameynaya analysis-ka. gaar ahaan waxaan baran doonaa laba shay maanta oo kaliya. kow waxaan rabnaa inaan barano what is reliability analysis. maxaa waa horta reliability analysis-ka? waxaa kaloo baranaynaa when to conduct reliability analysis. goormee aad sameynaysaa reliability analysis. kadib qaybta kaloo muhiimka ah aan baranayno waxa waaye markaad samaysa reliability analysis maxaad report garaynaysaa, sideese u qoraysaa reportkaas. marka qaybta dambena reportkan gacanteenu qori doonaa waa arki doontiin. marka cashirka qayb maanta wuxuu ku saabsan yahay labadaas arrin. intaanu guda galin ka hor waxaan mar kale idin xasuusinayaa waan idinkana codsanayaa inaad videogan like dhahdo, channelkan aad subscribe dhahdo si aan bulsho Soomaaliyeed oo waxbarashada ehel ku ah aan halkan ku sameyno. aan bilaawno marka. normally waa maxay reliability analysis horta? reliability analysis waxaa laga wadaa scale-ka isticmaalaysid ma yahay mid si consistently ah ugu turjumayo variable-ka cabiraysid. aan isla soconayaa reliability marka laga hadlayo waxaa laga fiirinayaa scale-kaada su'aalaha aa haysatid ma yihiin kuwa ka turjumaya scale-kaas ee constructors ama variable-kaas. marka tusaale ahaan haddaa fiirisid anaga waxaan haysanay questionnaire soo maaha. questionnaire-kan qaybtan haddaa fiirisid waxaan cabiraynaa variables kala duwan. mid ka mid ah variableskan cabiraynan waxaa loo yaqaanaa awareness of e-shopping. awareness-kan waxaan ku cabiraynaa su'aalooyin dhowr ah oo 5 ilaa 5 su'aal ah. waa kuwan 1 up to ilaa iyo 5. su-aasha marka waxa waaye 5tan su'aal mid kasta mala xiriirtaa midda kale oo dhammaantoodna ma ka turjumayaan variable-kan. jawaabtaadu haa iyo may inay noqoto waxaa asal u ah reliability analysis. marka reliability analysis sababta aan u sameynaynaa waxayba tahayba inaan ogaano scale-kan aan isticmaalayno ma yihiin su'aalahan kuwo toos u cabiraayo constructigan. misla fahnaalahaas middaas waa midda koowaad. arrinta kaloo muhiimka waxa waaye goormee la isticmaalaa reliability analysis. reliability analysis waxaa la isticmaalaa marka aad rabtid inaad dhowr su'aal inta isku geyso oo hal variable isugu geyso deetana aad average ka soo saarto. average-kaasna aad u isticmaasho inaad wax kale kusii samayso correlation ama analysis kale aad ku samaysid. markaad su'aalo dhowr inta isku geysaba hal variable ka soo saari rabto waxaa qasab ah inaad samaysid waxa loo yaqaano reliability analysis. therefore haddaa kan u fiirsatid dhowr su'aaluu ka kooban yahay. hadhow markaa rabo inaan cabiro dadka Soomaaliyeed ma ka warqabaan e-shopping seen ku cabiraya su'aalahan mid miyaan u qaadanaya? maya, dhammaantood intuu isku geeyo aan hal variable waxaan sameynaa lahayaa awareness of e-shopping. su'aalahan dhan qaybtaas iskugu wada shuba. marka haddiiba dhowr su'aalood aad meel isugu geen rabtid analysis si aad u isticmaashid waxaa qasab kugu ah inaad samaystid reliability analysis. marka see la iskugu geynaa cashir kale aan ku bari doonaa. laakiin maanta muhiimaddeena waxa waaye haddiiba aad haysatid dhowr su'aalo oo hal variable cabiraayo waxaa qasab ah inaad samaysid reliability analysis. reliability analysis marka see loo sameynaa waxaa qasab horta kow inaad haysatid su'aalaha dhowrka ah. dhowrka su'aalo okay dhowrka su'aal waa inaad taqaanaa. kadib su'aalahaas hal mar aad sameynaysaa reliability analysis. SPSS-kaada aadaysaa. hadda inta waxaan ku haysanaa 5 su'aal. 5tan su'aalna wax xasuustaa dhammaantoodna waxay cabiraan awareness. okay waxaan dhahaa marka waxaa aadaysaa SPSS-kaada qaybta analyze, kadib waxaad tagaysaa qaybta scale, kadibna reliability analysis. marka halaha samayso waxaad dhahaynaa aaway 5tii su'aal oo la xiriirtay awareness. waa 1 2 3 4 5 5taasi ahayn 5taba halkan soo geli. markaa halkan soo keento qaybta statistics-ka tag. qaybta statistics markaad tagto gaar ahaan waxaad tagaysaa qaybta descriptive-ka. halaha qaybta ugu muhiimka waa tan descriptive-ka. descriptive markaad tagto saddexdan shay dooro. maxaa laga wadaa su'aal kasto ha soo muuqato
scale-ka guud ahaan ha soo muuqdo su-aal kasta haddaan tirtirana reliability-ga inuu hoos u dhacayo inuu hoos kor u kacayna iyadana ha soo muuqato these three boxes are very important for the reliability analysis therefore waxaan dooranaa saddexdooda 1 2 3 then maxaan dhahaa continue kadib meeshaan modelka isticmaaleen waa alpha basically asaa kugu filan haddii advanced analysis aad samayn doonto ama dadka advanced userska qaybahan kale way dooran karaan marka anaga hadda alpha kaliya noo hato kadib okay dheh natiijada marka hadda intee kasoo baxay maxaa marka meeshaan wax muhiimka ah qayb kasta aan fiirino marka kow waxaan haysanaa boxkan waa midkaan dhahnay hadda ana hadda xasuustid saddex boxan tick saarnay sooma kii kood wuxuu ahaa scale-ka guud ahaan marka waa case summary guud ahaan marka wixii la soo summarize gareynaa waxaan dhahna marka meeqa analysis kan lagu sameeyay 744 wax missing major maya missing total aan waxaan ku jiraa dadka aaminsan daatada missing haday ku jirto ha analyze gareen missing oo dhan ka fogow missing si loogu fogaada video ka horeeyaan ka dubnay fiirso marka meeshaas hanoo joogto qaybta kale aad marka qaybtan kale hadaa aadid waxa waa reliability statistics numberka aan u socono oo reliability analysis ka dhan waa numberkan 0.726 meesha maxaa laga rabaa haddii analysiskaada dhowrka su'aal ay ka yar yihiin 0.6 hadday ka yar yihiin dadku waxay dhahaan 0.7 laakiin sababtaan u dhahay 0.6 waa idin sheegaa 0.6 hadday ka yar yihiin su'aalaa ka taagan su'aalahaada mana cabiri karaan scale-kaas warkas macad laakiin hadday ka sareeyaan 0.6 ilaa iyo 7 it's good acceptable hadday 7 ka koreeyaan very good 8 iyo wixii ka sareeyaan waa excellent خلاص مثل فهمني marka dadku guud ahaan waxay dhahaan 0.7 waa inuu ka sareeyaa aniga maxaa markuu dhahaa 0.6 buugi aan hadda kan idin tusaayo oo dhahay materials kan isticmaalayo casharada hore buugaas oo Julia Bellent qori wuxuu buugaas reference u isticmaali kartaa haddii 0.6 ku soo baxdo maxaa yeelay buugaas wuxuu dhahaa scale-kaad hadduu ka kooban yahay su'aalo yar su'aalahaan celi inta dhowr 5 su'aal soo ma hayst haddii ka baran 3 su'aal ama 2 su'aal bis meeshan haysa lahayd scale-ku marba hadduu ka kooban yahay su'aalo yar 2 3 hadduu ka kooban yahay waa iska suuragal inay reliability-da number yar ku soo baxo therefore 0.6 hadduu ku soo baxo it's acceptable yaa ka keenta hadii lagu dhahona buugaas Julia Bellent site garay buugaas reference aan u isticmaalo halaas misla fahnay marka hadda maxaa noo soo baxanaga waxaa noo soo baxay 0.72 it's very good waa qaadi karnaa micnaheedu waxaa kaloo marka la isla aadaa qaybtii kale aan ku darayna marka oo hadayta aan sheegnay oo jeegaan saaran qaybtaas waxa waaye waa qaybtan qaybta ugu muhiimsan inta waaye haddii 0.6 wax ka ku soo baxo qaybtani maaw qaybtan waxay leedahay haddii itemiska shanta ahay mid ka mid aan tiro maxaa dhacayo okay haddii item 1 aan tirno wuxuu aadi doonaa scale-keena 0.6 macnaheedu uu yahay hoos u dhici doonaa itemka labaad haddaan tirno wuxuu aadi doonaa 0.6 hoos u dhici doonaa itemka saddexaad haddaan tirno 0.79 macnaheedu yaa kor u aadi doonaa therefore itemkan saddexaad aan fiirinaynaa because haddaan tirno wuxuu kor u qaadi doonaa reliability analysis-kan marka kan shanaad waa iska tiraa kan saddexaad oo ii keenayo inaan kor iigu kaco reliability-ga waa iska tiraa marka therefore macnaheedu waxa waaye su-aashan mala macnaha si toos ah oo wanaagsan ulama xiriirto su-aalahan kale marka waxaan u naqanaa mar kale waxaan sameynaa reliability analysis-ka maadaama aan helay item haddaan tiro reliability-ga uu kor u kacayo therefore ii celi analysis-kayga waxaan dhahaa analyze waxaan aadaa intee scale waxaan dhahaa reliability analysis therefore waxaan dhahaa midii saddexaad taas ahayd iga celi kadibna okay dheh hadda waxaan fiirinaa marka scale-kayga hadda kor muuqaa hadayt wuxuu ahaa aan sala soconayaa hadayt wuxuu ahaa 0.726 waa kana hadayt wuxuu ahaa 0.726 haddana waa imisa taasaan rabaa inaan ogaado haddana waa 0.79 marka isku mid ah maya yaa wanaagsan tanaa aad u wanaagsan therefore kana isticmaala su-aasha kale ku xigta marka
maadaama hadda reliability analysis sameeyey maxaa report gareynaa seen u report gareynaa okay waxaan dhahaynaa normally dadka teebladana qaadan teebladahaas ku qaadin haddaba waxaan dhahaynaa this one new table sameeyey tablekan waxaan dhahaynaa ha ka koobnaado ilaa iyo 4 column ha ka koobnaado soo soconaya waxaan report gareyn rabaa waxaan dhihi rabaa halkan waxaan ku qoraa wixii variable ah idinka hadhow variableskiina ku xiran tahay ay haysatiin aan hadda waxaa hal variable aan sameeyey halka muxuu ahaa awareness okay marka wixii variables ah intaan ku taxaa mid kale ii jira aniga oo ah tusaale ahaan perception oo hadda aan sameynin kuwa kale ii jiri karo oo ah mid kale jiray oo saddexaad kor hadda kama xasuusto marka dhowrka variables aan u tahay intan waxaan dhahaa marka maxaa waaye this is the Cronbach alpha halkan ku qoraa dadka aan u jeedin waa soo weyneynaa dhib ma laha hadda misan ahaa qaybta kale inta Cronbach alpha marka dhaca marka maadaama perception ma sameyn moogta hadda waxaan sameeyay clear awareness kan waxaan dhahaa meequu ahaa waa naqanaa waxaan dhahaa 0.793 okay right at ya control r 0.793 very good inta maxaan ku qori doonaa cashada kale aan kusii sharxi doonaa waxaa standard deviationka iyo waxaas aan ku qori doonaa hay dambe markaas tableka marka aad had sahan ku sii ahaado marka variableska kale sii sameey ayadana numberska halaan ku ahaadaan okay maxaa marka report gareynay waxaan dhahaynaa intan fartan soo weynaysiisto si aad wada aragtaan waxaan dhahaa reliability analysis was conducted we had an issue with one variable waxaa qoraysaa markii aad dhamaysid qaybtan variableska dhammaantood ya haddaa 5 variable haystid 5 Cronbach alpha soo wada saar kadib baa waxaan qoray aniga marka maadaama time aan naga weynaanayo timeka nala dheeraan doono hadda waxaan kasoo qaadaya anoo qoray 5 Cronbach alpha reliability analysis anoo sameeyey waxaana marka reliability analysis was conducted we had an issue with one variable ky variable kaas awareness oo ahaa waa awareness marka waxaan dhahaynaa we removed the item to improve our Cronbach alpha mujida waxaan dhahaynaa marka Cronbach alpha waxaan dhahaynaa marka خلاص ما نشوفها marka waxaan dhahaynaa therefore all the variables were internally consistent and reliable as such the variables are deemed for further analysis marka waxaa muhiim waxa waaye waxaan leenahay waxaan conduct gareynaa reliability analysis waxaan hal issue waxyaabo kala kaloonay su-aashaas awareness-ka one item ka mid ah one-kaas item waa ka remove gareynay si aan kor ugu qaadno alpha alpha numberka oo 0.79 oo noo tahay soo ma waxaan leenahay marka all the variableska waa consistent and ahayn therefore they are reliable maadaama halaas helno waxaan leenahay variableskan dhan the variables are deemed for to be ready for further analysis waxaan leenahay marka variableskan waxay diyaar u yihiin inaan hadda analysis ku sameyno waxaan isla fahnayaa waxaan hadda sameynayna waa scale-keena questionnaire-kan inuu consistent yahan xaqiijinayni therefore si aan analysis-keena u guda galno correlation iyo wixii rabaan ku ahaadaan misla fahna halaas marka cashirkeena maanta qaybtaasaan kusoo gabay waxaan idinkaga tagaa marka su-aasheenii assignmentigii sida caadada ahayd dadka kasoo jawaabo aan usoo reply garin doonaa dad waxaa jirta si joogto oo la socda casharada marka dadkaas raba inaan kula saarno su-aasha waxa waaye demographic variableska
waxyaaba waxaa jira aan dadku weydiinin soo maha da'da ageka marital statuskaada waxa aad tahay genderkaada waxaas soo dadka ma weydiino education levelkaada kuwaas reliability analysis ma ka samayn karnaa haddaa haa dhahdid sabab haddaa may dhahdidna sabab waxaa noo balanah cashirka kan ku xigo haddii ay tahay markii ugu horreysay aad janalkan muuqaal ka daawato waxaan kaa codsanayaa inaad riixdo subscribe si aad qayb ugu noqoto bulshada aan halkan ku dhisayno haddiise aad doonayso in fariim ahaan aad u hesho had iyo jeer wixii aan ku soo kordhino janalkan waxaad riixi kartaa sumadda u eg gambaleelka ee ku taalla dhanka midig ee subscribe mahadsanid